بسم الله الرحمن الرحيم. wax ka barano weydiintana what is a check. inta aanan loo gudbin in aan qeexno ereyga check aan kala saarno qaab qoraaleedka check. qaab qoraaleedka koowaad ee hortiina ka muuqda waxaa adeegsada luqadda Ingiriiska Mareykanka dadka wax ku qoraan, halka qaab qoraaleedka labaadna ay adeegsadaan dadka wax ku qoraan ama ku hadla Ingiriiska Britishka. marka labada qaab qoraaleed micno ahaan waa isku mid, waxaana lagu qeexi karaa in jeegu yahay dukumiinti amraya bangiga in uu bixiyo lacagta ku qoran dukumiintiga. lacagta oo laga bixinayo koontada macmiilka qoray lana siinayo qofka loo qoray. fiiro gooni ah, jeega ma ahan lacag ee waa dukumiinti lagu qaato lacagta. jeega waxaa loo adeegsadaa in lacag looga saaro current account. haddaba waxa jeegu uu dhex maraa 3 qolo oo kala ah. 1. qofka soo qoray jeega ee raba in lacagta uu bixiyo waxaa loo yaqaanaa drawer. qaybta labaad, qofka lacagta qaadanaya waxaa loo yaqaanaa payi. halka qolada saddexaad oo ah bangiga bixinaya lacagtan waxaa loo yaqaanaa drawee. fiiro gooni ah, isla macmiilka qoray jeega ayaa u adeegsan kara jeega inuu lacag kala baxo koontada uu leeyahay. xog dheeraad ah oo ku saabsan qeexidda current iyo saving account ka dhageyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin, waa inoo mar kale haddii Rabbi idmo.